ayaa diyaar u ah in 2 sano heshiisa ay ka saxiixdaan laacibka Manchester United Ashley Young 33 jirkan ayaa xor u ah inuu wada hadal la galo kooxaha dibadda isagoo heshiiskiisa uu dhamaanayo xagaagan balse aysan jirin wax heshiis kordhina oo kooxda United wali la galay. Red Devils ayaa dhankeeda doonaysa in wada xaajood ay 1 sano heshiisa ay uga saxiixato ay la geli doonto laacibka qaranka Ingiriiska ee Young. Xidigan ayaa 19 ciyaar United u saftay dhammaan tartamada kala ciyaareedkan waxa uuna ka mid yahay lafdhabarada ugu muhiimsan ee safka Red Devils. Difaacan dambeedka midig ayaa ka mid ahaa xidigihii ugu cadcad safka Jose Mourinho sidoo kale tana iminka qiimo weyn ayuu ku leeyahay hogaamiyaha kumeel gaarka ee Ole Gunnar Solskjaer waxa uuna Young ku soo bilowday kulankii ay 4 gool iyo 1 ku garaaceen Bournemouth axadii laga soo gudbay. 1 gool ayuu Young dhaliyay 3 caawinna waa uu sameeyay isagoo ka ciyaaraya dambeedka difaaca waana mid qiimo weyn ku leh kooxdiisa. yeelkeeda laacibkan ayaa muhiim ka ahaa xulka Ingiriiska ee gaaray afardhamaadka koobka adduunyada xagaagan waxa uuna laacibku guda galay xirfadiisa ciyaareed ee ugu dambaysa. ciyaaryahankii hore ee Aston Villa ayaa ku soo biiray Old Trafford 2011 markaa uu qiimo 17 milyan kaga yimid kooxda Birmingham ka dhisan. Premier League ayuu kula guuleystay FA Cup, League Cup iyo Koobka Europa League muddooyinkii uu u ciyaarayay kooxda Old Trafford.